madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kormeer ku tagay xarunta taliska booliiska ayaa la kulmay taliyaha ciidanka booliiska Zareeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed iyo saraakiisha kale ee taliska wuxuuna kala hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa booliiska iyo shacabka taliye ku xigeenka booliiska Zareeye Guuto Sakiye Xuseen Axmed ayaa waxa ay ka warbixisay waxyaabihii ay madaxweyne Farmaajo iyo saraakiishu ay ka wada hadleen rabto waxa si ka disaan ugu yimid kormeer madaxweynaha aniga ku guda jiray shir maalmeedka caadiga ah oo shirka amniga guud oo ka wada hadlaynay habka loo xoojin karo amniga iyo wada shaqaynta bulshada madaxweynaha si ka disaan ugu yimid wuxuu maxaan ku raadaaday la dardaarmay saraakiisha oo howlgalada ku jirta oo kala dardaarmay in bulshadana lala shaqeeyo howlgaladana la xoojiyo wuxuu dib noo soo xasuusiyay horta koow anaga inaan nahay ciidan laga soo asaasay bulshada inaan nahay hooyada ciidamada qalabka sida oo anagana laga doonayo inaan tusaale u noqono dhammaan ciidamada qalabka sida madaxweynaha waa madaxweyne bulshada marka fariintu ka wada bulshada madaxweynaha uu yahay ayuu maanta nala wadaagay waxa keenay inuu nala dardaarmo shirkana si kadis loogu imaadana taas baa horta ku ka ahayd wuxuuna aad saan u sheegaba noogula dardaarmay inaan lagu xadgudbin bulshada anagoo sugidda amnigana ahmiyadda koowaad siinayna in maxaa ku leedahay bulshadana loo naxariisto loona fududeynta u fududeyn karno anagoo ah ciidankii naga soo aasaasay bulshada Yacquub Casheeye wararka telefishinka GBC